السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بشوين سوماليات بيدي السلامية وهذا لما أنا هلا يدي أول كسر وهذا برنامج فيني هو حلقة وحن لتاجنا هي حليمة هي السوماليات إسلام كان إن بدن إلى سهاد لسه وربتين عن موقع كذوبس أنا مدة محسنين السوماليات أنا جوبها هي إن شاء الله زي كلمة وجهشة هرت هو حليمة إلهي عاون أقبل إن أنا معرفت السوق قادنا halkan waxaan ku guddoonsiin doonaa aandhaho isku joogada dharka ah oo maaragtay walaal muxsin uu la soo baxay abiyo hooyadii oo dhintay maaragtay ilaahay xariistan Allah ka waraabiyo Xaliimo waxaan leeyahay horta iga guddoon isku joogada iga guddoon Xaliimo walaalo insha Allah khayr oo garadii shalmadii oo isku joogii koowa isku joogaasina walaalo waa kii labaad isku joogaasi waa kii saddexaad isku joogaasina waa isku joogii afraad mid walba dirciga oo garadii halkii ay ka soo saareen waxaan leeyahay wax khayr qaba Allah idin geliyo walaalada yabaatiino naga noo damqanaya oo naga naxaya halkii ay ka soo saarteen insha Allah khayr wax badan oo muhiim ah Allah idin geliyo dadkii aad ula baxdeena Allah tafaxa khayrka miisaanka xasanaadka Allah u saar aamin aamin Xaliimo saanadii sheegay hore ila sahashay in badan bay ila saadleysay mashquul baan ahaa caawi ilaahay qadaray inaan maaragtay u imaado in badan waxay iga codsanaysaa inaan muuqaal maaragtay aan ka baahiyo oo aan umada muxsiniinta ugu soo bandhigno maadaama duruufta nololeeda la dhacaysa aandhaho Xaliimo hoygan aad aragtaan bay asxaabi ku jirtaa 7 caruur ay ku dhaxaysataa inanteeda weyn macaan bay qabtaa mar walba muxuu ahay macaankeeda dhacaa imikada waxaan u nimi iyadoo dawadii macaanku aanay talaagadna ugu jiro waanad ogtihiin dawadan macaanka talaagad la'aan ma noqoto talaagad ba maxay iskaga dana hoyga aad arkaysaan bi ku jirtaa Xaliimo iyada ka hor dhici maayo insha Allah bal inoo faahfaahin doonta Xaliimo ku soo dhawow bal nooga waran walaal in badan la soo hadlaysay xaaladda ka waran insha Allah in badan kula soo hadlay laakiin caawi ilaahay isku keen idmay inaan kulano in caruurta halkan waan ku haystay markii hore ana dharka xaafada u soo meedhi jiray weelka u soo xali jiray 20 kun 40 kun wixii ilaahay iga siiyay ku noolaay imikana xumada ay ku dhacday dhulkayna wada dhigateen iyo caruurtaba waa la igu yeeshay 3 bilood oo kiraa waa la igu yeeshay oo guriga am xay toole jingada aan ku jira oo laydkii le oo kiradii le oonan hidin kara haynin oonan awood haynin oonan haynin oo alla igu ogi saacada daba ma shidin oo may cunin oo may caluumanin saaka dukaanka amaah baan la tagay 380 kun igu leeyahay waji aan la taga waan waay marka ummadayda muslimiinta waxaan weydiisanayaa biyo cadna waa la cabaayay awlaada waxay ku seexdaan iyo inta macaanka qabta talaagad maxay toolay aan ugu rido irbada يعني hadii la yidin karana oo la bixi karana wala la bixi karaa muslimiinta wixii haysta way la bixi karaan ila yidin karana meel ay buul iyo uga dhisto buul ka yar waxa sarar la'aan ku noolaada iyo kiradii keen iyo hanjabaad intaaba waan ka reeysan lahaa hooday hadal ku soo dhawaada Xaliimo waxaad noo sheegtay inaan wax gogoliba dhex oolino maxay carruurtu ku seexdaan cawdaas ku seexdaan aan la igu ogi furaashka ayaa bilaagalka ee googaan gabarba carruurteeda ku kaadaday waxay igu tiri adiga wiilka yar aad leedahay waxaan u sanaya dhinaca dhiga sababna waan ka soo qaato waa ka soo bilaagal maxay huwadaan labada bustay oo khaliya ayaa naga dhaxeeya waana 7 ciyaaliya aniga 8 carruur waxaad ii sheegtay marka dhawadan wada sheekaysananay inaad saaka uga soo qaaday dukaanka uga soo qaaday maanta may qadeen baad igu tahay ma siinin maanta biyo sonkor la ayaan qorshay sharaab yar baan siiyay dukaanka uga soo qaaday sidii bay ku jiifsaday noonaha yar ma haystaan imika noonaha yar baa iigu yar sanad buu jiraa daasad caana ma yaqaano faxa yar marka hore waan siiyay sharaabka yar bis kuwa weyn bulaafi imika baara saacad waa 9 habeenimo manay qadeen xilligan wax cashaana ma hama siin hooyada iyo aabahayna way yeelan xaafada waana maxay tore iyagiba iga daran aabahay waa naafo rag dalka soo halgamay hooyada imika macaankii saacadana la yiri hay buu maraya dhaqtarkii weynaa loo qaadayo ayagiba iska daala dhacayba wax alla waxay igu tarayaan iyo waxaan isleeyahay ka xistiyay midna ma jiro aabahana dadka mujaahidiinta weeyaan oo uu jabay oo gacan banaafa buu laalaadinaya masaajidka iyo guriga bas indhahana waxa gagsan ka markay oo tabaaraadkii ugu qaleen macaa'il gurigan aad ku jirtaa ma qolkan dhex taagana mise waa may waa qolka shaqo iyo barantaha jiinkada in baad adiga 7 carruur ku aniga halkaas aan ku wada noolaa horena waxa tiri waxaan u meedhi jiray dharka iyo weelka iyo waxa soo masaariiftooda aan uga soo qaad jiray marka xumadii way ugu dhacday xubnaha kama kici karo kini yaro madmadow aan qalbi farmasiiga marka shilinka helo doonta asxaabi waa tahay waa aragtaan hooyadan
maaragtay xaaladda ay ku nooshahay iyo duruufteedaba dhammaan ummadda islaamka waxaa ka codsanaynaa inay soo garab istaagaan. xaliima bal telephone numberkaaga noo sheeg. 48 haye 26 haye 828 4826 maxaa soo baxaya? xaliimo ismaaciil xuseen. xaliimo ismaaciil xuseen. asxaabay lambarkeedu waa tahay nala wadaagtay. haddana lamaane arganaafada ka ahaa waxaan idinka codsanaynaa inaad maaragtay qoyska hooyada tabaalaysan duruuftu maaragtay nololeed ay ku deyran tahay inaad soo caawisaan oo bal calaa aqal xataa caruurtana waxay ku seexdaan idinkaa arka inaad maaragtay usoo gurmataan. muhiimaddu ma aha in lacag lasoo diro loo iibiyo, xataa say sheegayso qofkii awoodaya gurigiisa uu yaalo iga soo doondhahooday amba gurigayga iigu keen si maaragtay amba lambarkeedaba soo wac si maaragtay aan ugu geyno insha allah biidnillaahi kariim. hooyada hala soo taakuleeyaan idin leeyahay. xilligaa wataa caruurtaa sheegtay inay bilaa qadana ahaayeen bilaa cashana ahaayeen. wixii ilaahay nooga qadaro ay ku casheeyaan waan u diri doonaa insha allah. laakiinse waxaa idinka codsanaynaa haddii rabbi raalli ka noqdo gurmad bay u baahan yihiin ha loo soo gurmado oo hodan lamaanaha indhaha loo idin leh insha allah. war dadkiina soo taakuleeya jilicsan bishii barakaysnada ramadaanna way soo socotaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi